xisbiga nabadda iyo horumarka ee PDP ayaa maanta deeq joodariyaal buugaag qalimaan iyo raashinka qutul daruuriga gaarsiiyey caruur isugu jirta darbijiif agoon iyo sidoo kale kuwa danyar ah oo lagu xanaaneeyo qaybo ka mid ah degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka ahna musharaxa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno sare oo ka tirsan xisbiga PDP ayaa maanta gaaray goob caruurtaasi wax lagu baro oo ku taala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir markii ay halkaasi gaareen ayaa waxa gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka oo warbixin ka dhageystay gudoomiyaha xarunta ay ku jiraan caruurtaasi dhibaataysan oo wax lagu baro Yaasiin Cabdullaahi Galeer oo ah gudoomiyaha xarunta dadkaasi agoonta ay ku jiraan ee lagu magacaabo Somali Children Care Organization marka la soo gaabiyana magaceeda loo yaqaan Somko oo halkaasi kula hadlay wafdiga uu hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka ayaa waxa uu sheegay in fikirka caruurtan darbijiifka ah iyo kuwa agoonta lagu soo ururinayo ay leeyihiin dhalinyaro arday ah oo wax ka barata jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir ilaahay ma iskala marka ugu horeyso waana ku faraxsanahay booqashada qaaliga ah ee aan la hilmaami doonin ay ku soo booqdeen halkan xisbiga horumarka iyo nabadda waana ilaahay aan kaga mahad celinaynaa xaruntan aad nagu soo booqateen haddaan gudoomiye wax yar faahfaahan idinka siino waxaan aasaasnay January 11 2000 ayaan aasaasnay waxay sii furan tahay muddo hal sano ah waxaana aasaasay dhalinyaro asaagiigo kala ah oo aniga aan kamid ahay oo wax ka barata jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir ay kamid yihiin arday siimad wax ka baratay iyo arday Muqdisho jaamacadaha Muqdisho iyo Banaadirba waxaan yani fikirkan helnay January 11 2000 annagoo ka damqanay dareenayna in dhibaato badan iyo dacdarro badan ay ku dhacday caruurta Soomaaliyeed gaar ahaan ilmaha darbijiifka ah ilaahay waa inoo fududeeyay waxaan sameynay contribution ayaan iska aruurinay lacagii ayaan iska aruurinay ayaa wax inoogu suurta gashay inaan ku kureyna xarunta markaan kireynay waxaan ka dhisnay galaasyo oo jingada ah waxaan markaas bilawnay inaan soo aruurino ilmihii darbijiifka ah waxa ilaahay inoo suurta galiyay 30 kamid ah inaan qabanno inta kale awoodeeda maanley capacity-geeda waan ognahay Muqdisho maanta waxa ku dandareysan ilmo gaaraya darbijiif 8,000 oo ilmo ah ayaa ku dandareysan research annaga naftigeena ka qayb qaadanay marka xaruntan waxa lagu daryeelaa oo maanta murashaxa qaaliga ah Professor Xasan Maxamed Maxamuud oo nagu soo booqday haddaan ka sii xaruntan waxa yani ay daryeeshaa caruur iskugu jira darbijiif caruur ka soo jeeda qoysaska saboolka iyo caruur agooman ahba gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka ahna musharaxa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi ka hadla ayaa sheegay in deeqda ay halkaasi gaarsiiyeen ay ugu tala galeen 30 arday ee darbijiifka ah oo aan lahayn meel ay dib ugu laabtaan wuxuu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud in ka xisbi ahaan ay si dardar gelinayaan hawlaha ama rajada ay u bilaabeen caruurtan dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaradan marka waxaan leeyahay waxaad bilowdeen aad iyo aad ay u fiican yihiin annaguna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in ay kala qayb qaadano wiilashaas yar ee maxaan ku yiraahdaa maanta aad rajada u abuurteen shalay rajo la'aanta ahaa darbiyada jiifay qaarkood koolo dhuuqayeen qaarkood aan hooyo iyo aabba meel aan ku ogeyn qaarkood ay agoon yihiin oo hooyada aabood inay lahayn ay og yihiin maanta inaad meesha inta ka soo wadaan xaruntan sameysaan oo keentaan oo rajo u abuurtaan oo aan rajaynayna haddii alla yiraahdo berri mustaqbalka inaan arki doono qaar badan oo ayaga ka mid ah oo dadka iyo bulshadaba dalka iyo dadkaba wax badan u taro qaar badan oo ayaga kamid ah berri dhaqaatiir ah qaar badan oo injineer ah kuwa saraakiil ciidanka ah oo dalka difaacaha ama amnigiisa ay ka soo bixi doonaan sida hadda ka horba xarumihii maxaan ku yiraahdaa agoonta iyo dadka lagu han jiray dadka ka soo baxay maanta dadka Soomaaliya ugu fiican qaarkood ay ku jiraan ayagana waxaan rajaynaynaa in kuwaas oo kale ka soo baxaan annaguna xisbiga nabadda iyo horumarka haddaan nahay haddii alla yiraahdo waxaan ballan qaadaynaa hadba intii awoodeena la egtahay inaan marna maxuu ahay arrintaas aanan idinku dayacin oo aan wixii aan kari karno mar walba aan ka qayb qaadano dhalinyaradaas maxaan ku yiraahdaa aad rajada u abuurteen inay xaqiiqowdo oo aanay dhicin duruufo jira awgeed inay berri haddana ay dib ugu laabtaan suuqii kuwa kalena in la keeno intii la badi karo la badiyo annaguna insha allahu tacaala wix allaalay wixii aan kari karno oo awoodeenna ah waan idinla garab taagnaan doonaa intaasi kadib caruurtii xaruntaasi ku jirta ayaa hees calan ku macsalaameeyay gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka ahna musharaxa madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta la socotay
samada weko sudi bane waina usargana salana hortagna markila salayo waina usargana salana hortagna markila salayo usaqmay usariyay xisbiga nabadda iyo horumarka waxa uu ka mid yahay xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira waxaana dhowr jeer oo hore deeqo kala duwan uu gaarsiiyey dad ku dhibaataysan gudaha iyo daafaha magaalada Muqdisho.